Soomaaliya ayaa mar kale talaabo u qaaday ka faa'iideysiga kheyraadka shidaalka kadib markii aqalka sare ee baarlamaanku uu ansixiyay January 6, 2020 sharciga batroolka dalka walow sharcigu uu soo rogay haddana waxaa la filayaa inuu soo jiidan doono maalgashatada shirkadaha shidaalka caalamiga balse waxay muruga ka taagantahay in ansixinta sharciga uu ku soo beegmay xilli olole doorasho iyo rabshado argagixiso ay dalka ka bilowdeen taasoo baqdin gelin karta maanka maalgashatada shisheeyaha. haddaba su-aashu waxay tahay maxaa muhiim ka dhigay udugga saliidda Soomaaliya lagu sheegayo 10 sannadood ee la soo dhaafay waxaa si xoog leh looga helayay gaaska dabiiciga ah iyo saliidda inta u dhaxaysa Mozambique iyo Kenya. wasiirka shidaalka iyo macdanta Cabdiraxmaan Maxamed Axmed waxa uu yiri muhiimadeena maanta waa inaynu cadeynaa jiritaanka harooyinka keyd iyo xaqiijinta mugga saliidda. Soomaaliya waxay magaalada London ku soo bandhigtay February 7, 2019 macluumaad laga soo ururiyay sahaminta Spectrum ee Juba, Luma Basin, Color Basin iyo Bay Basin. halkaas waxaa ka soo ifbaxay in uu dalku ka mid noqon karo mid ka mid ah baraha saliidda ugu muhiimsan ee xeebaha Bariga Afrika. Suuban Maxamed Jaamac Bootaan, Voice News Hargeysa.